إلهي بمهله سوكان كاني قوبتن بالديره ومانتا هيئة Human Concern International deeq raashina waxaan joognaa Baaldheere halkaasi oo ay deeq raashin oo iyo bustayaal isku jirta soo gaarsiisay hay'adda magaceeda ku soo sheegay ee la yiraahdo Human Concern International iyagoo markaa ugu talagalay dadkii abaaraha ka soo doogay inay futuur uga dhigaan waxaan leenahay hay'addaasi kaalmada soo bixisay ilaahay meesha ka soo saartay waxa qabaha ugu bedelo waxa kale oo leenahay dadka reer Baaldheere ee kaalmadaasi soo gaadhayna ilaahay ha idin barakeeyo ayaan leenahay kulay gacan bini aadan lagu bedelo deeqda ilaahay baa lagu dhalgaa ilaahay nin walba ku saaqo oo idinkana ha idin barakeeyo ayaan leenahay kulay waa goor kulul iyo rabadan baa lagu jiro hadalka dheerayn maayo hay'adana mid baan oran dadka deegaankana mid baan oranayaa dadka deegaanka waxa leeyahay war noqda dad isku naxariista oo kolba kiina u itaag daran hora wixii idin soo dhaca ha noqonina kuwa xusubka isku riixa kuwa isku taagsada kuwa kolba ninka tukooyle arrinka ku tukooyle itaalka ku tukooyle in wax looga taga ha noqonina noqda kuwa isku naxariisto kolba kaydii ku tamar daran wixii idin soo dhaca uga taga intaasaan qolada deegaanka oranayaa hay'adana mid baan laho hay'adda waxaan aad warbada kulanay Maxamed Cabdi Cismaan oo inamada hay'adda socodka way noo wadaa waxaanu ku ballanay waxa ka badan in insha Allah ta'ala inoo qabtaan oo ay waxyaabo badan inaga kaalmeyn doonaan insha Allah ta'ala waxaan leenahay dadka wada aragtaan caafimaad bay u baahan yihiin waxbarashada loo xoojiyo u baahan yihiin hawl bilowgeedu inta maanta weeyaan wax badan oo aad u ballaaran ayaa sidaan hore isugu ogeynba aad ka sugaynaa baan leenahay iyo kulayn kale way isugu jirta oo dadka itaalka daran leh lagu caawinayo iyadoo ay deeqda international oo fuligeedu waxa weeyaan hay'ad aad u mahadsan ana waan ku wada sida guddoomiyuhu sheegay waana bilowgii hawshii aan ka wada hadalnay insha Allah wixii kale inay daba socdaan ayaan rajaynaynaa iyaga kulli hadalka inoo dari doona waxa dadka deegaanka waxa ilaahay baa horta gacantiisa umada wada gaadhay laakiin gacanta bini'aadamka ma wada gaadho weeyaan haddii ay magaranaysa ay wada gaari weydo isku haneeya oo ilaahay ugu mahadnaqa haddii ku itaal daran oo maanta walaalka ahaayo garabkaaga ahaayo inaad adiguba aad wax siisaa ay waajib kugu ahayd haddii lagaa soo afursiyo wax lagaa soo gaarsiiyey waxa weeyaan ugu mahadnaqa warkii horta waa wada meesano waxay ahayd kooxda ugu kala wadantay abaaraha ay saameeyeen oo qaybihii ugu dambeeyay ayay noqonaysaa dad xilli qeyb iyo hay'adda international waxay doonayaan waxyaabaha shaqada ka mid ah waxyaabaha emergency-ga ayaa ka mid ah abaarahan iyo wixii la mid ah iyo mashaariicda kale iyo sustainable development projects aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee noo soo dhaweyseen intii waan arkaynaa inay dadku ka badan yihiin waxaanu sidno iyo kala badan yihiin iyo maxaa haday iyo lambarka badan meesha ka kala badan yihiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaan marka dambe iyada xisaabta ku darsan doono haddana aynu siin doono inta aynu qorshaha ku darsanay oo aynu ku wareejin doono alaabta ay ka mid yihiin maxaa haday bustayaasha iyo cawdaha iyo bacaha guryaha la saaro xilli roobaadkii mar hadday tahay iyo raashinka kale ka mid yihiin bariiska iyo sokorta saliidda كان ما ودي ما هنقيا وحنا رجينا يعني الساعة في عنا الله بساطه وانا ما سنتي سنة سنة نوصل لجسيم الله يراعي نيجم ما هنقيا كمان تناك قوي همين ما وحكرت خيجي هداتين اللي هيدا مقعدة يومن ها وانا قوم هنقينا كلمة ذا نوك هنتاي إنك استوب بيشة Baaldheere la yiraahdo deegaankeedu tira intan ku dhow ama agaysa aanay ahayn oo 350 qoys ay tahay haddana macaawimada intay noo keeneen waan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna ha ka jisaysiiyo waxa la yiri maanta waa maalin bil Ramadaan aad iyo aad waxaan halkan uga soo dhaweynaa عدة
horta ilaahay baa mahad leh annagu wax kastoo la noo keeno waxaan ugu mahadnaqaynaa koow ilaahay marka labaad dadweynaha ay laabtooda ku soo dhacday inayna caawiyaan ayaa iyaguna mahad leh ajarka ay maanta qaateen iyo hawshana ilaahay baa ka jisaystay waxa weeye maadaama ay reebaan waxaan aad u soo dhaweynaynaa cidda hawshaa maanta ka qayb gashay ka hawl gashay keentay dadkoogii siisay يعني تبرع عين كاسة مال كستو جوجو وسود وين بسم الله الرحمن الرحيم وحوي مركا هيدا وإياد تاي مقدار هيومن دوينها سود ويسير راشين كبستيان يعني وحيالا لو سي فرحوا حكمنا واحد صار رئيس عنتدي يهوجي يقبش وواح لقد ينكر وواح عصبون وعن كسوق جبين وحي حري waxa kala xiriiri doontaa cidda annaga noo joogta meelaha sabtarka ee arrimaha xogaalka goor kasta na wareysata kuwaas oo iyaguna muuqda